shirkadda Abu Yasir iyo maxjarka wadaniga ah ee Berbera ayaa muddo 12 cisho gudahooda dekedda magaalada Berbera kaga dhoofiyay markabkii labaad kaasi oo qaaday xoolo tiradoodu dhan tahay 6,000 oo neef oo isugu jira 3,000 oo ariya iyo 3,000 oo geela. markabka qaaday xoolaha tiradoodu dhan tahay 6,000 ee neef ayaa waxa uu habeen hore ka ambabaxay dekedda weyn ee magaalada Berbera. afartii bishan 12aad ayay ahayd markii shirkadda Abu Yasir ee maxjarka wadaniga ah ee Berbera ay dhoofiyeen xoolo dhan 22,000 oo neef oo isugu jira ari iyo geel. xoolahan tiradoodu ay dhan tahay 6,000 ee neef ee isugu jira 3,000 ee geela iyo 3,000 ee ariga ah oo ay dhoofiyeen maxjarka wadaniga ah ee Berbera iyo shirkadda Abu Yasir. maxjarkan wadaniga ah ee Berbera ayaa waxa uu ku yaala dhammaanba agabkii xooluhu u baahnaayeen sida laabkii caafimaadkooda lagaga warhayo, dhakhaatiir heegan ugu jira xaaladda xoolaha ku jira maxjarka iyo shaqaalaha daryeelka xoolaha markasta ka warhaya. shirkadda Abu Yasir iyo maxjarka wadaniga ah ee Berbera ayaa muddooyinkii u dambeeyay u shaqeynayay si xawliya. Cabdirashiid Cabdiwahaab.